xaflad ballaaran oo lagu taageerayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe isla markaana ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Jubbaland ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa lagu qabtay magaaladaasi xafladda oo ay ka soo qayb galeen madax matalaysa maamulka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyada Jubbaland ee dalka Australia ayaa waxa munaasabada hadallo kala duwan ka jeediyay madax kala duwan waxa sharafna inaan halkan naga soo qabshan xafladan aan ugu talagalnay taageerada doorashadii hufnayd ee ka dhacday bishan 15-keeda magaalada ku-meelgaarka ee dowlad-goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo laguna doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe runtii waxaan leenahay xafladan iyada sida xiriyaha uu sheegay waa xafladda loogu talagalay in loogu dabaaldego looguna hambalyeeyo madaxweyne mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe caleemasaarkana uu bishan dhexdeeda oo soo socdo dhacay iyadana inaanu horumarsanno haddaan nahay jaaliyada Pacifica xafladda waxay aqbaasatoo isugu jirtaa waxa weeyaan labada arrimood xafladani ay daaran tahay waxa weeyaan waa maalinta caleemasaarka inkastoo aan la gaarin maalinta caleemasaarka haddana waa soo hormarsanay maadaama ay tahay isla bisha gudaheeda ama bisha dambe bilowgeeda ay tahay marka waxa weeyaan intii 2 maalmood haddana 2 xafladood la kala qaban lahaa maanta ayaan isku darnay waan kuu soo qadinay madaxweynaha madaxweynaha waxaan leenahay hambaliyo waxaad ka soo baxday caqabado fara badan waxaad ka soo baxday cadaadis iyo ciriiri fara badan ayaad naftaada iyo nafta reer Jubbaland ka soo saartay halkan horumarka iyo Jubbaland State Office iyo sida aan wadooyinkeena caafimaadkeena iskuulaadka wax walba aan uga qeybqaadan haddaan jaaliyada Jubbaland Pacific waxaan noo bilaabay dhisitaankii Jubbaland State Soomaaliya maanta maashaan Soomaaliya caawna Soomaaliya halkaas ka sii wadayna dhisitaanka Jubbaland State Soomaaliya dad badan ayaa isku dayay khaasatan dhinaca dowladda inay arrintaas dagaal siyaasadeed ku qaadaan laakiin ilaahay ma aqbalay ilaahay wuxuu aqbalay in maanta ay ka dhisan tahay dowlad inuu ka dhisan yahay xafladan aad u qurux badan mataqaana aad loo soo hagaajiyey ka dambeeyey sida aan ognahay maamul goboleedyada ku jira Soomaaliya oo markii labaad la doortay waxaana uu helay cod gaaraya 90% xildhibaanadiisa ay siiyeen codka baarka intaa leeg wuxuu ku mataystay dadka qaarkii way isweydiiyaan walaakiin wuxuu yidhi anigu aqoon ma lihi laakiin aniga waxaan soo arkay oo la soo kulmay bishan 2 bilood Axmed Maxamed Islaam waxaan ku soo arkay calaamadaha وهوكر عدين بيحي هاس وحا عدينيسا أقر سنو جوي حتى Jubbaland أبني قصة وحلوغا قبطي هرمالك لسوبين أيو إيادو دولة السوبلة إسايو إيادو سومالي نبي محمد ودير Jubbaland أقوطا ليسوكين أيو إلا نيشا بعض سومالي وقنا بكتان وغير حال مركا إما عرفت وحلوغا اللي هاي أما وحران اللي هاي أي هكا عصوب الحال way samaysteen waan ku guuleysteen waan ugu hambalyeynaa waxaan ku amaanaynaa marka asaga intaas oo ummad ah asagoo isu keenay oo intaas oo ummad ah hogaamiyo oo madaxweyne u ah oo qaar ka xanaaqsan Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo.